wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ay wehelinayeen xildhibaan Cabdikariim Shabeel iyo xubno kale ayaa deeq raashin waxa ay gaarsiiyeen dad iyo xoolo muddo bil ka badan ay guddiga abaaruhu ku xanaaneynayeen waqooyiga magaalada Hargeysa waxaana madashaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda xildhibaanka iyo mas'uuliyiin kale waxaana hadaladoodii kamid ahaa ilaahay binu ku jeero maxadabeyna ayaa jiri wad halkan sidii ahayd boorkii ka kacayay iyo maanta sidaynu u deganahay walaba waxa ay iimin ilaahay inta yar isku bedeli kara wax dibku qurux badan yahay roob baa xalay helay meelaha ka yimaadeen markii hore aan halkan ku hakinayna roob baa u yahay marka imika waxay ku socdaan waa ambabax inina way baxday loodii 450 iyo dadkii hayay ayaa iyaguna imika guuraya marka runtii wala isku tagay Soomaaliland umay kala xareen haday loodan tahay haday tahay la bariya galbeed wixii abaarahaas ay naga soo gaaray dadka intii itaalkeeda waynu kuwana kuwiba kamid ahaayeen dadka tabaalaysan ay markaaba arintii ay qaylanaantii aynu geynay ay ka soo jawaabeen waana ilaahay mahadi waxaana laga yaabaa muddo dhow in ay qayb waliba ku noqoto meelihii ay ka kala yimaadeen oo ay halkan guriyo noqod ay ku noqdaan marka waxaan u arkaa ilaahay baa wax badbaadiyay in ay tahay wax ay maanta jicinaha oo ay ku guuri karaan si ay meelahoodii u gaadhaan ilaahay ma hada gaadho marka labaad dawladda Soomaaliland ayaanu iyadana mahad iyo abaal leh oo ah ilaa madaxweynaheena inoogu sareeya Axmed Maxamed Maxamuud Sigraayo ayaan mahadda u diraya marka kale wasiiradeena wasiirka iyaga aad iyo aad noogu sii dheer ee ah wasiirka maaliyadda oo ah Samsam Cabdi Aadan ilaahay naxariisiyo nabadgeliyaba korkeeda ha ka yeelo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa waxa kale oo raaca wasiirka kale isaguna qaaliga ah ee ah wasiirka diinta iyo awqaafta kaasoo ah Sheekh Khaliil kaana waanu mahadnaqay oo halka isaguna noogu keenay caleen iyo cawskaaba